waayo marka walaal haddii aan soo qaadano example-ka kan ah example-kan noo yaal how can we name it sidaan u magacaabi karnaa ila magacaabaa la rabaa sidee loo magacaabi karaa su-aasha ugu muhiimsan waxay tahay horta baaranti sharciga aan ku dhaqangelinay baaranti jeynkeyga aaway kow taasaan isweydiinaynaa 1 2 3 4 5 6 7 baaranti jeynk maanta waa iska caddahay ma adko waa 7 waay sama 1 2 3 4 5 6 7 dhinaca carabta u tiri 7 waa adiga baaranti jeynkan waa 7 hay saajineed meesha noo yaal maxaa waaye saajineed meesha noo yaal waxaa waaye waa methyl chloro bromo oo soo laabta waaye haye saajineed waa garanay qodobka labaad nambarey weliba waxaad ka nambareynaysaa in alkan markaad joogto meesha uu ka dhawaado triple boundiga dhinacan yaa dhow dhinacan waayo dhinacan kaarboonka labaad waa kana kaarboonka 1 2 3 4 5 oo ka noqona marka isku mid ma ah 1 2 3 4 5 6 7 waa nambareyne haye aan magacaawno marka aan magacaabayn sidaan ku magacaabaynaa waxaan hormarinaynaa saajiinada sharciga waxaan ku dhaqmaynaa laba saajiin oo kala duwan haday silsilad yimaadaan laba iyo wixii ka badan oo kala duwan haday silsilad yimaadaan u fiir alphabetical waaye saajiinada imaad waa bromo chloro iyo imaade iyo methyl yaa ugu hormaray bromo meeqa jeer ay soo laabatay waxay soo laabatay laba jeer waxaan ku dhaqmaynaa laba saajiin isku mid haday yimaadaan name as labadaas saajiin isku mid markay yimaadaan waxaad u magacaawdaa name as waxaad u magacaawdaa labadaas saajiin isku midka oo ku yimaaday waxaad u magacaawdaa ka hormari dhaay try haday laba yihiin laba saajiin isku mid haday ku yimaadaan dhaay dheh laba saajiin isku mid haday saddex saajiin isku mid haday ku yimaadaan try ka hormari afar isku mid haday ku yimaadaan tedra ka hormari sidaas sharcigaas aan ku dhaqmayna marka maanta marka waxaa yimaada laba saajiin isku mid ah hay marka magacaabeyn maxaa leenahay marka waxaa leenahay 4,6 waayo positionada ay ku kala dhageen ardayda qaar waxay isweydii karaa macan 6,4 ma dhihi karaa maya nambarada say u kala yaryihiin u kala qor qodobkan sidoo kale komada maxaa u keenay sharci aan u keenay sharci ahaa numbers are separated by haven comma numbers are separated by comma nambarada waxaa lagu kala saaraa comma waayo 4 iyo 6 hadaan isku dhajiyo 4 iyo 6 ay noqoni qalad ay noqon marka qoraalka xataa qudhiisu waa sharci 4,6 haven maxaa u dhahayaa numbers and letters are separated by haven marka fiiri dhaay waa xaraf kana waa haven marka mar walba shuruucda xusuusnaada waxaan ugu celcelinaa waxay tahay in la fahmo waan ogahay haddana waan ku celcelinaa waayo si maskaxdiina u gasho darteed 4,6 dhaay bromo haye kadib maxaa kaloo leenahay chloro iyo taal chloro kaarboonadii ku dhigtay kaarboonka afraad iyo shanaad waxaa leenahay marka 4,5 dhaay chloro haye kadib waxaa inoo hartay methyl ilaa methyl meeqa jeer ay soo laabatay in si fiican fiiriye silsilada oo wada jeedaane methyl laba jeer ay soo laabatay soma waxaa leenahay 5,6 dimethyl kadib xus baaranti jeynkaaga baaranti jeynkan weliba waxaan sheegaynaa positionku triple bound ku dhagay waxaa leenahay triple bound marka wuxuu isku haysaa su-aal waxaa iska weydii kartaa labaadna ku dhagay saddexaadna ku dhagay kee la qaadanaa kaarboonka nambarka yar ayaa la qaadanaa horin double bound waa idigu soo sheegay kan waa sidaas oo kale waaya waxaa leenahay marka 2 kadib baaranti jeynkan meeqaa waay 7 hept waa 7 sama YNE ku dar YNE indicators maxay cadayni alkyne heptan maxay cadayni number 7 ay cadayni toon maxay cadayni position of the triple bound ay cadayni inaad fahanteena fil example kaas kan xiga na aadiya waaye silsiladan noo taal example saddexaad silsiladan qaab noocan u magacaabi karnaa marka ugu horeys baaran jeenkan ku aansana waa baaran jeenkan waa 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 waaye qodob isla qodobka waa saajiniyada meesha ku yaal aqoonso saajiniyada meesha noo yaal waa methyl chloro iyo fluoro waa aqoonsan numberay antee ka numbereynina meesha uu ka dhawaado triple bound maanta inta waxa yaal triple bound
intan waxaa yaala triple bound hay dhinacow ka dhawaaday labadan triple bound midkee dhinac ka dhawaaday waxaa dhawaaday midkan waayo midkan dhinacan kow u dhegan yahay midkan kow laba u dhegan yahay marka waxaan ka bilaabaynaa dhankan waayo ugu bilaabnay dhankan uu ka dhawaaday kow intuu u dhegan yahay intan dhinacan wuxuu u dhegan yahay kaarboonka labaad dhinacan kaarboonka waa saa darteed dhinacan ka bilaabaynaa 1 2 3 4 5 6 7 intaasi kadib maxaan sameynaynaa waa sidaan u magacaabi karnaa qaab noocan u magacaabaynaa markaan magacaabayno intaasi aan magacaabayno waxaan hormarinaynaa saajiiniyada horto saajiiniyada sidaan ku magacaabna marka macaan saajiniyadii horeeyo kaloro methyl fluoro kaloro ugu horeyso iska cadda meeqa jeer ay soo laabatay fiir marka iska ordin waxay soo laabatay waxay ma soo laaban hal jeer bas imaad sama halkeeda jeer bas xus waxaan leenahay marka 4 kaloro 4 kaloro waayo waxay ku dhigan tahay kaarboonka afraad hayso kale methyl iyo soo horeeyo iyo fluoro soo horeysama a b c d e f soo horeys waxaan ka cudur daaranayaa laakiin commentigan ku soo qoray example aan ku magacaawnayaa jiro oo 23 inuu yahay jeclahay 23 ama 25 mid waaye ka fiiriya example aan magacaawnayaa jiro oo ah methyl iyo fluoro markaas waxaan soo hormari methylte marka waa qalad aan sameeyay waaye laakiin iyadoo sax ah commentiga ka fiiriya aan ku soo biin garay commentiga ugu horeeya oo biinka aan saaray waaye ka fiiriya iyadoo sax ah meeshaas aan ku saxay marka fluoro soo hormarisama waxaa leenahay marka 3 fluoro garanay intaas maxaa kaloo noo haray marka waxaa noo haray mithaaliyada noo har marka maxaan leenahay marka mithaalyadan hormar aan sheegaynaa kadib waxaan leenahay mithaal meeqa jeer ay soo laabatay ilaa fluoro hal jeer leeyahay mithaal laba jeer waxaan leenahay 3.4 kaarboon saddexaad way ku dhagan tahay fiiriya afraad way ku dhagan tahay waxaan leenahay marka 3.4 dimethyl intaas kadib maxaa kaloo sheegnaa waa su'aal muhiim ah waxaan kaloo sheegaynaa position of the triple bound iyo kaarboonka hoosteeya la qaadana midka numberka yar waaye waxaa leenahay 1 maanta qoortaada xurma halle ma aha hay intan soo kale wuxuu ku dhagay shanaad iyo lixaad yaa yar mid kale yar qaado 1.5 maxaa la marka baran jenken meeqa waaye waxaa la marka baran jenken waa 7 waxaan leenahay marka 1.5 hept haye ein saasa ugu dhawaaqi ein waa qaabkaas saasa ugu dhawaaqina marka ku dhawaaqina oo waxaa leenahay 4 kaloro 3 fluoro 3.4 dimethyl 1.5 heptadiene saasa ugu dhawaaqina ein y n e da ku dareysaa gadaal inaad fahanteen examplekaas waan rajeynaya exampleken ugu dambeeya markaan soo qaadano walaal examplekan waa ujeedaan waxaa meesha inoo yaala double bound marna waxaa inoo yaala triple bound marka examplekan waxaa waa inaan idigu faa'iideeyo aan rabo haddii silsilad ay ku kulmaan double bound iyo triple bound sidee loo magacaabaa silsilada haday double bound iyo triple bound silsiladaada ay ku wada kulmaan waxaa ku magacaabaysaa sida caadiga ah waxaad hormarinaysaa marka ugu horeyso qaybta triple boundiga ah sababtu maxay tahay usaad triple boundiga iyo double boundiga yaa reactivity badan loo fiirinaa waxaa reactivity badan triple boundiga maadaama triple bound reactivity badan yahay asiga ayaa laga bilaabaa nambareynta haye magacaabidan marka la magacaabayo yaa la sheegaa yaa la horxusaa
waxaa la hor xusaa markaas lagu kala saaraa alphabetical lagu kala saaraa oo yaa horeeya e n e iyo y n e yaa horeeyo waxaa horeeya alphabetical e n e saa darteed marka e n e da la xusaa marka ugu horeyso sababta loo xusayn waxaa waaye as alphabetical marka la magacaabayo marka la nambareynayana waxaa la sheegaa kooda ugu horeysa ama la qaadanaa dhinaca tribal boundary ka dhawaaday hadda example-kan ugu talagalay fiiri 1 2 marka inta kasoo tiris kaarboonka labaad waxaa ku dhagan double boundary marka inta kasoo tirsane kaarboonkada labaad waxaa ku dhagan tribal boundary yaa nambareynta sidaan oo kale dhacday marka yaa la qaadanaa marka waxaa la qaadanaa dhinaca tribal boundary uu ka dhow yahay ayaa la qaadan waayo tribal boundary ayaa reactivity badan waaye marka waxaan leenahay 1 2 3 4 5 6 baaranti waa iska caddahay 6 waaye saajiiniyada waa iska caddiin waa iska fududiin kuwaas maanta kaliya intaanaan rabna inaan fahno marka saa darteed marka intaas aynoo taalo waxaan ku sameynaynaa intaas kadib waan magacaabaynaa yaan magacaabaynaa saajiiniyada horta meel naga bixi saajiiniyada hal baromo oo taalo waxaan leenahay marka 4 baromo haye kadibna maxaan leenahay kadibna 5 methyl haye kadibna maxaan leenahay double boundary kaarboonku ku dhagan yahay shanaad iyo afaraad yaa yar waxaa yar sooma afraad yar sooma afraad soo qaad marka waxaan leenahay 4 in haye tribal boundary kadibna xus tribal boundary wuxuu ku dhagan yahay kaarboonada labaad saddexaad yaa la qaadanaa waxaa la qaadanaa kaarboonada waxaa la qaadanayaa kaarboonka labaada la qaadanaa waxaan leenahay marka 2 haye parent gene meeqa marka parent gene waxaa waaye waa 6 waxaan leenahay marka 2 hexane qaabkaas aad u magacaabi inaad hadda kuu kala baxsan tahay aan filaa 4 in 2 hexane waa qaab aad iyo aad u gaaban oo sharti ah waxaa kaloo oo ku qori kartaa qoraalka saajiinada noo soo qaad mar kale or waxaa kaloo dhihi kartaa soo kale waxaa kaloo dhihi kartaa 4 bromo 5 methyl maxaa kaloo dhihi kartaa marka waxaa kaloo dhihi kartaa marka waxaa kaloo dhihi karnaa hex 6 noo soo hormari kadib waxaa leenahay 4 in 2 wine qaabkaasna u qori kartaa qoraalka 4 bromo waxaa kaloo dhihi kartaa 4 bromo 5 methyl hex 4 in 2 wine qaabkaasna waa dhihi waxaa kaloo dhihi kartaa wadada kaloo kuu furan waxay tahay walaal or waxaa kaloo dhihi kartaa 4 bromo 5 methyl labadan saaji waa iska dhaafarto inta kale waa waxa qoraalada marka dhow waxaan ku dhowr wada ku qoraa waxaa intaba waa sax waa qoraan buwaagta hay 4 bromo 4 methyl kadib hadda waxaan isku qabanaynaa parent iyo double boundary yaa soo hormaray marka muhiimadu tribal boundary mar walba inuu gadaal jiro hay waxaan leenahay marka 4 hexene 2 wine ujeedaa sidaan waa sax iyadana saddexdan qaabaa loo qori karaa qoraalka saddexdan qabadaartu waa sax had fiir marka meeshan 2 hexane meesha maxaa yaala 4 en 4 mar waxaan aan 4 e dhammaan marka fiiri ujeedada ma jirtaa si u saxantaa fiiri mar walba tribal bound inuu gadaal jiro waayo tribal bound muxuu gadaal u maray alphabetical hexane yne wadooyinka aan mari leh kala duwan mooyaane inta kale waa sidii double bound mar walba soo hor 4 ene marka inaad fahanteen aan filaa
aada mahadsantihiin example wax badan insha Allah aad ka faa'iidi doontaan inuu yahay ayaan rajaynayaa insha Allah cashirkeena xiga iyo isomerism ka ayaan ku xiji doonaa aada mahadsantihiin walaalayaal wabillahi tawfiiq